السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا wanaagsan idil ahaantiin badawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan ee daafaha caalamka naga daawada meel kasta aad joogtaan iyo xil walba idin tahay ku soo dhawaada warka telefishinka Sima qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah dhalinyarada ku dhaqan ismaamulka Diridhabe gaar ahaan xaafad Ciise ayaa soo qaban qaabiyay afur wadareed Sheekh Maxamuud Mahjuud ayaa ka warbixiyay fadliga bisha Ramadaan waxa uuna ugu baaqay ummadda Islaamka inay caawiyaan dadka barakacayaasha ah ee galbeedka City waa tahay daawadayaal qodobadaasi oo faahfaahsanayaan isugu soo laaban doonaa hadduu alla idmo isku soo noqod wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani sida tooska nooga dheehanaysaan waa telefishinka Sima haatan ku soo dhawaada warkii fidsan dhalinyarada ku dhaqan ismaamulka Diridhabe gaar ahaan xaafad Ciise ayaa soo qaban qaabisay afur wadareed falada warkaasi waxay noo soo koobaya wariyaheena Ciise dhalinyarada ku dhaqan xaafad Ciise xaafadda toddobaad ee ismaamulka Diridhabe ayaa soo diyaarisay afur wadareed ay ugu tala gashay dhalinyarada xaafadaha kale ee ismaamulka degan dhalinyarada ayaa sheegtay in bisha barakeysan ee Ramadaan loo baahan yahay in la isku soo dhawaado oo alle la xuso isla markaana laga warhayo dadka tabaalaysan haddaba mid kamid ah dhalinyarada ayaa inoogu warbixiyay waxay u qabteen aftur wadareedkani Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Ramadaan Kariim Ramadaan Mubaarak afturkan waxaan u diyaarinay dhalinta xaafadaha dhan sidii la iskugu baran lahaa barakadiisa iyo Ramadaanka khayrkiisa sidoo Ilaahay mid nooga dhigi lahaa ayaan programkan u sameynay waa program aad u ballaaran wuxuu leeyahay arrimo badan buu koobsanayaa saddexda shay ugu horeysa aan programkan u sameynay waxa weeji horta in marka koobaad la isbarto isbarasho oo khayr ugu horeeyo inay isku bartaan dhalinto xaafado kasta 5 qof baan uga yeedhnay waxaana ugu yeedhnay waxa weeji inay horta xaafadii isku bartaan xaafadda toddobaad ee qabale eber toddoba waa xaafadii xaafadaha waa xaafadii quruxda waa xaafadii jacaylka waa xaafadii midnimada waxaana ugu tala galnay halkan inaan ugu qabanno arintan munaasabadan maaragtay afturka marka saddexda shay oo arintan koobsanaysa marka koobaadi waxa weeji waa isbarasho marka labaadna waxa weeji in la isxasuusiyo bisha Ramadaan khayrkeega in la isxasuusiyo arinta saddexaad ee arintan u diyaarinay waxa weeji qof wali ama xaafad wali inay laamaan ay ku laamaan xaafadoogii si ay u baraarujiyaan dhalinyartooda dadaan haysan baa jira bisha Ramadaan waxay ku afuri lahaayeen inay qof kasta xaafad kasta ay 10 xaafadood ay mas'uuliyadeeda qaadaan ayaan u diyaarinay programkan laakiin waxa jira waxaan ugu tala galnay anagu ka xaafad ahaan waxaan diyaarsanay hadda 10 xaafadood in aan siino bisha dhan waxay ku afuri lahaayeen oo hawsheeda ku jirno oo gabagaba bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wassalaam ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam ugu horeyn su'aashaadii weydiisantaan galin waxaan jecelahay inaan idhaahdo ummadda islaamka oo dhan Ramadaan Kariim sanadkiisa Ilaahay waxa weeyaan bashbashiyo barwaaqo nagu gaarsiiyo kadib markaan u soo laabmo waxa weeyaan su'aasha ama weydiintaadii weydiisay horta runtii waxa weeyaan waa wax aad u fiican oo la bogaadiyo inay dhalinyartu gartaan ahmiyadda Ramadaanka u leeyahay iyagoo taa ku dhiiranayana inay dad waxa weeyaan walaal isku keenaan ay barnaamij noocan diyaariyaan runtii waxa weeyaan waa wax aad lagu farxo waana ku faraxsanahay waana sababtaan u soo ajiibay waxa weeyaan fariintii ay soo direen inaan ka soo qayb galo marka kullee waxa weeyaan iyagu deetani waxay u ahaanaysaa hormuud bay dhalinyarta u ahaanaysaa de kullee waxa weeyaan cusubna ma ahin laakiin dardar fiican oo kuwii hore ka duwan in waxa weeyaan lagu diyaarin karo ayay tani tusaale fiican u tahay marka insha Allah waxaan filayaa tani ka sii ballaaran oo ka sii weyn in waxa weeyaan dhalinyarta magaaladu isku arki doonto oo meelo badan laga sameyn doono kullee waxa weeyaan Ilaahay xigmadu galiyay Ramadaanka ma uu soo dajiyay waa waxa weey dadku inay midnimo dareemaan ka faqiirka iyo waxa weyn ka tijaarka inay waxa weey ka sinaadaan xigmadaha Ramadaanka ku jirto Ilaahay ku soo dajiyay marka kullee waxa weeyaan bishani Ramadaan waa bil barakeysan dhalinyarta waxaan u sheegayaa ama aan farayaa
dee kulley waxa weeyaan dad yow badan oo waxa weeyaan baahi guryihii la fadhiya jira oo baahidoodu muuqan marka waxa weeyaan dhalinyaro ahaan waxa weeyaan sidan ay u garteen inay isku yimaadiin arrinkaana waxa weeyaan qorshaha in lagu darsado oo la yidhaaho xaafadda waxa weeyaan amba waxa weeyaan xaafaddiiba dad intee leegoo baahan baa jira baahidooda maxaa laga tari karaa inay dhalinyaradu waxa weeyaan arrinkaana dib isugu noqdaan ay barnaamijyo lamid ah ay ka sameeyaan dhanka kale waxa weeyaan dadka maalqabeennadu waxa weeyaan ilaahay deeqda lacageed siiyey bishan waxa weeyaan bishii naxariista ee la iskaalmeynayay ee la isquudinayay maadaama ay tahay waxa uu ilaahay siiyey inay wax wanaagsan kala baxaan oo walaalahooda wax weeyaan baahidu hayso xasuustaan ayaan farayaa dhalinyarada inteedii kale ayaa sheegtay in loo baahan yahay in laga warhayo dadka tabaalaysan isla markaana waxay sheegeen in laga warhayo dadka ka soo barakacay colaadihii canfartu ay ku haysay galbeedka gobolka City waxaana daladoodii ka mid ah wasatan ma sha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Ramadaan kariim cid walba iyo muslim iyo meel kasta jooga waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak bisheeda ilaahay si nabad ah nagu gaarsiiyo wallahi munaasabada si fiican ayuu nagu soo gaaray oo Ramadaanku alxamdulillah ilaahay baan ka baranaynaa sida caafimaad nagu soo gaarsiiyo dadkaas waa in la caawiyo horta masaakiin kasti way ka horeeyaan mudnaanta iyaga leh maanta waxba ma haysan lama waran karo waa dad waayay oo wax markii hore wax iska haysan jiray oo in la garab qabto u baahan dadka la garab rugsan leeyahay waa in laga warhayo anigu itaalkaygii iyo maalkaygii iyo fikirkaygaba diyaar baan uga sheekh maxamed juud ayaa ka warbixiyay fadliga bisha Ramadaan waxa uu ugu baaqay ummadda islaamka inay caawiyaan dadka barakacayaasha ee galbeedka City waxaana hadaladiisii kamid ahaa sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayyidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ahibba'i fillah sidan wadogsoon horta bisha Ramadaan waa bil barakaysan waa bisha ilaahay bilaa kala wardan ka doortay وابشر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وسلسلة الشياطين وفي رواية وسفيدة الشياطين ما لنت اعتماد بشر ما حلقة اعتماده البابة الجنة على فراء البابة النار تنوال الحراء شياطين تنوال الحكمية بشر رمضان ومد كمدة أركان الإسلام كمد كمدة وين وركن كافراد وحول الله إليه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كوا حق رمي واحد كوا واجبين صوم بشهر رمضان سيدي لو واجبي ومدي كلا إذن كهري لعلكم تتقون وحمدنتين إنه إلهي كدور ستان هذا بشهر رمضان أعفاش الله سميه ويفربضنتهاي إن أفرل كلا حدو وكبرجيسة إلى قبل دعا إنه قف كاف حدو صدح شيء بينه كاف حدا واجبه صدح ذا سويحيا أعب كعنده هي قلماتك صدح ذا دول لي ماذا صون كيسي وبابايا إلا هدو إلا وسيه هو عبو أما هدو يسقو إلا وسنو ومارك تان عنتعنو تاسي لبداسي إلهي بعبسيب الرسول صلى الله عليه وسلم قفك أولا كسو سمي صدح ذا وحاوليه صون كيسي وبابايا دايو تصدح هذا دو قلمات لي ماذا waxaba saaran ba kafaara inuu bixiyo oo kafaara adag oo muqallada inuu sameeyo halka bisha Ramadaan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noogu maneeyay waa bisha quraanku soo degay shahr Ramadaan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan bi ilaahi subhanahu wa ta'ala wa bisha Ramadaan ilaahay soo dejiyay quraanka soo dadka u hanuun una kala saaray xaqa iyo baadilka una kala cadeynay xaraamta wanaagiyo xumaantana u kala saaraya bisha Ramadaan maadaama quraanku soo degay ina waxa fadli badan quraanka akhriskiisa la badiyo waayo waxa uu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam القرآن والصيام يشفعان للناس للعبد قرآنك ما ركتاني صومك بأدونك مالنت قيامها وهو شفاعات قادان يقول وحا وليه هي صومك مالنت ولما عندي كعشي إلهي يقول شفاعات قاد أقبل شفاعات نقاضي فشفعني فيه شفاعات نقاضي أقبل فيشفع له كل كاس له شفاعات قاضي يعني قرآن كنا وحورنا همينك ولما هردده ودي دي إلهي وما شفاعات فشفعني فيه أقبل شفاعات نسوي قاضيه كل كاس لقى أقبل دونه وحيان قفكو إنه وحياله سمية خيرات كوحة كميدة ذكر قول بديو قرآن كول أخرستو سلاده وشنت بول قلت كذا جماعاتك أنت كذي واحد سمية أساس ونيوجو تكتيد دتك ودوجر جارتيد وحولي النبي صلى الله عليه وسلم قفك أفرية قف مسلمة أو صومن
ajarkiisa isaguna laga dhimin yaabuu leeyahay xadiiska macnihiisa wuxuu lahaa waxa uu leeyahay ajarkiisa isaguna laga dhimayn ajarkiisoo kale ayuu leeyahay qofkaas haddaba waxayaan qofka in la soomiyo magaalada xilliga magaalada la joogo dadka badan oo waxaa jira guryahooga aanan waxaysan waxay cunaan waxayna cabbaanna haysan afurkiina haysan inay kula soomaan waa waajib inay kula soomaanna waxayaan inaad sadaqada ula baxdid oo sadaqa siisid oo bariis iyo daqiiqdii iyo saliid haddaad u soo iibisid waxaa dhacaysa inuu qofkaas ka baxayo maalintaas ay ka badbaadayaan bisha Ramadaan ay xaafadooda ku karsan lahaayeen inay ku karsadaan intay yeedhin lahaayeen magaalada saa awgeed intay dadka muslimiintu isku mid inay noqdaan awgeed waa in loo tababaraa dadka masaakiinta dadkana waxaysan dad guryahooga iska fadhiyo maanta 2 liira haysan baa jira laakiin ma soo bixi karayaan waxaanu ma weydiisan karayaan bishii Ramadaan ninka siba reerkiisa waxa uu dhigtay raashin maalintii 7 baa ka hadhay lahaa ayaa raashin la soo iibsado daasaniido iyo sokor iyo wixii oo dhan la soo dhigtay laakiin taasi waxay kaga duwan tahay dad masaakiina jira guriyo iska leh guriyoogii jooga 2 liira aanan haysan bishii Ramadaan oo soo gashay waxay karsadaan ma haysto waxa ku waajiba dadka jaarka ah inay dadka gargaaraan ay u soo iibshaan rasuulku waxa uu leeyahay sallallahu alayhi wasallam naga mid ma qofka isagu intuu dhargo jaarkiisii oo gaajoonaya daragsan xikmadda soonka loogu waajibay baa kamid ah inaad gaajada la dareemo gaajada xilliga dareentid waxa dareemaysaa dad baa maalin waliba sida u gaajoonaya maanta aragtay adu maanta soontay baad aragtay dad baa maalin kasta sida u gaajoonaya saad u ogaatid xilligaad ogaatid inaad sadaqada la baxdid gargaarka siisid dadkan waxaysan gacmaha qabatid oo xaafadahan dhibaataysan raashin loo geeyo say raashinka u qaataan ay u cunaan dad yow barakacana way jiraan waqtiyadan oo kale oo dhulkoogii ka barakacay oo dagaalo amba dhibaatooyin kale ku yimaadeen kuwaas oo kalena in loo tabaabusheeyo raashinka la siiyo gargaarka la gaarsiiyo waa waqtiga sadaqadu ugu fiican tahay maxaa yeelay sadaqadu waxay kala leedahay waqti ay zaid noqoto iyo waqtiyadaas waxa kamid ah bisha Ramadaan nabigu waxa uu leeyahay sallallahu alayhi wasallam xadiiskii macnihiisu ah bisha Ramadaan fariidada sameeyay 72 laab la mid tahay 12 bilood oo kale ka waran bisha ninka la baxa sadaqad bisha Ramadaana bilaa kale 72 laab ayuu dheer yahay bay ka dhigan tahay waa in sadaqada la baxa dadka dhibaataysan loo gargaara oo la ogaada dadka gaajoonaya saan maanta aad u dareenay gaajadiina qabatay ka waran dad baa maalin kasta saa u gaajooda waa inaad wax loo qabtaa sidaasaan oran lahaa anigu waa tahay daawadayaal waa naga intaa war waxaan idinku talagalay habeenkan caawa sida tooska idinkaga imanayay telefishinka Sima warkan waxaa idin la socodsiinaysay anigoo Saynab ah markana intaynu hawada ku kulmi doono waxaan idinku sii dhaafayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu Ramadaan mubaarak